iskaashi iyo wada shaqayn ee ka dhaxeeyay labada dawladood ee Puntland iyo Galmudug oo kii afraad aan ku qabanay maantay magaalada Gaalkacyo madaxtooyadeeda shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo wasiirka maaliyadda Puntland iyo taliyaasha hay'adaha amniga ee kala duwan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee labada maamul waxa lagu gorfeeyay runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah ay dhaqdhaqaaqi ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aaga Bacadweyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyay in howlgal wada jira ay ciidamada labada dawladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo runtii waxaan u mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta iyo wasiirada gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay offer gareeyay ama ballan qaaday in ciidamada Puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada Galmudug ee kula jira furimaha hore aaga hore dagaalka kooxaha argagixisada waayo dhibaatada argagixisadu dhinac kasta way saameynaysaa haday ka soo gudbaan deegaamadaasna waxay u gudbayaan meelo kale oo caloosha ah marka in inta ay maaragtay halka lagu horfadhiyo in si wada jira loola diriro ayaa maaragtay kamid ahaa qodobadii lagu soo qaaday shirka waxa runtii qaybta kale ahayd amniga argagixisada guud ahaan magaalada Gaalkacyo in iyadana howlgaladii socday la sii laba jibaaro bisha Ramadaan maadaama lagu jiro maalmaha iyo bilaha ugu dhibka badan oo ay argagixisadu dhibaatada u geysato dadka Soomaaliyeed ay tahay bisha Ramadaan iyadana in howlgal wada jira laga galo sida ciidamadu iska kaashanayeen xalay iyo operation wada jira ay ku wada jireen sidaas la mid ah waxa lagu soo qaaday in cidii argagixiso lagu tuhmo dhinacay rabto wax lagu qabtay hay'adaha sharciga loo daayo oo odayaasha daba ordaya iyo dadka kale oo daba socdaba aan loo maaragtay dhagraaricin qofka argagixiso loo aqoonsadana inuusan hayb gaar lahayn iyadana waa lagu soo qaaday waana lagu heshiiyay qodobka ugu dambeeya ee laga wada hadlay waxay amniga bulshada oo qabaa'ilka iyo beelaha deegaamada ay wada degan yihiin iyo dhacdooyin dhacay bilihii la soo dhaafay iyadana in si nabadgelyo dib u heshiisiin lagu xalliyo qaarkoodna hadda ay socdeen maantay qaarna maalmaha soo socday furmi doonaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Mudug ku nool ee dhibaatooyinkaasi ay saameynta ku yeelatay inay isdejiyaan xalkoodiina labada maamulba ay diyaar u yihiin iyo labada bulshaba ay diyaar u yihiin in gobol la wada fariisto oo la xalliyo heshiisyadii hore loo galay beeluhu ay galeenna inay sidooda yihiin wixii xadguduba heshiisyadaasi ku yimidna in wax laga qabanayo oo sida ugu dhaqsaha badanna shaqooyin ay uga socdaan lana xallinayo wixii tabashooyin oo ka soo baxay heshiisyadii hore nabadda loo galay gaar ahaan nabadii ku saabsaneed galbeedka mudug goldogob iyo beelaha maaragtay bandiiradley iyo halkaas nabadii lagu soo yegleelay inay sidoodii tahay waxyaalihii reeraaya dhacay bishii la soo dhaafayna xalkoodii dhinac kasta uu diyaar u yahay odayaasha dhaqanka iyo beelahana si gaar ah iyo maamuladaba aan leenahay hal la ilaaliyo dhacdo way dhici kartaa mararka qaarkood cid fidna wada ah dhacdo way geysan kartaa laakiin taas macnaheedu ma ahan wax heshiiskii weynaa burburinaya marka taasna waxaan si adkeynayaa in arrimahaasina ay kamid ahaayeen arrimihii maanta lagu gorfeeyay wixii aan gacan ka geysan karnaa aan diyaar u nahay hadda maalmahan inaan ka geysano aad iyo aad baa mahadsantahay 10 bisha Abriil 2021 waxaanu ku sugannahay oo aanu hadda taagannahay xarunta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo munaasabaduna waxay ahayd munaasabada uu ka hadlay wasiirka amniga Galmudug Mr. Fiqi waxay ahayd kulamo joogto ah oo jiray oo looga hadli jiray amniga iyo iskaashiga labada dawladood ee Puntland iyo Galmudug
shirkani kuwa unbuu daba joogay waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka mida labada dhinac iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee mudug sidoo kale saraakiisha amniga hadday tahay daraawiishta hadday tahay booliska hadday tahay nabad sugidda oo labada dhinac iyo sidoo kale xildhibaano saasoo kale iyagana galmudug ka tirsan waxaa kaloo ka soo qayb galay qaybo ka mida garsoorka waxaa lagu gorfeeyey oo aad looga wada hadlay qodobo dhowr ah oo uu hadda dul maray wasiir fiqi waxaa qodobadaa ka mid ahaa uguna muhiimsanaa sidii si dhammaystiran laysaga kaashan lahaa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada caalamiga ah ee duulaanka ku ah dadkan iyo dalkan qodobkaa waxa uu ahaa qodobkii ugu muhiimsanaa ee wakhtiga badanna qaatay lagana wada hadlay meelna wax laysla dhigay qodobka la dagaalanka argagixisada waxaad ogtihiin argagixisadu ma laha limid iyo meel ay ku eg tahay waxaa iyada taarget u ah qof kasta oo bini'aadan ah xitaa islaamka iyo soomaalida keliya kuma eke cid kasta oo bini'aadana taarget bay u yihiin iyaga iyo naftooda iyo hantidoodaba soomaali oo dhanna waa ay u siman yihiin waxaannu marka aannu wada qaadannay labada maamul puntland iyo galmudug in meel looga soo wada jeedsado xogtooda la wadaago awoodaha wixii la isku biirin karo marba meeshii culays uu ka jiro layska garabsado waxaa haddeer taagan oo aad ka wada warhaysaan deegaanada bacadweyne in ay nimankii al-shabaabka ahaa ay yimaadeen dadkii halkaa degganaana ay dhibaato badan ku hayaan ciidamadoodiina ay weli joogaan arrintaa waxaannu isla go'aansannay in aannu si wada jir ah qorshe uga yeelanno meelna uga soo wada jeedsanno meel walba oo argagixisadu joogtana aannu wada jir uga wada howlgallo puntland iyo galmudugna in la dagaalanka argagixisadu ay ku midaysnaado oo aan wax u kala soocan oo dhinaca ku saabsan inaysan jirin maadaama ay isku cadow yihiin lana rabo in ummaddatan iyo bulshadatan cadowgaa ku soo duulay in laga qabto aad baan uga mahad celinaynaa wafdigii ballaarnaa ee dhinaca galmudug nooga yimi oo uu hogaaminayay wasiirka amniga fiqi sidii sharafta lahayd oo wanaagga lahayd oo kalsamida lahayd oo aannu qorshihii iyo go'aamadii dhammaan aannu isula hellay oo isula qaadannay uguna ballannay inaannu ficil u beddello iyo nataa'ij hadduu ilaahay idmo ay dadku ay ku farxaan waxaa lagu jiraa bishii barakaysnayd ee ramadaanka oo la rabay dadku inay cibaadaystaan ilaahay subxaana wa tacaala loo dhowaado argagixisadana caado u ah inay dadkaa cibaadaysanaya oo masaakiinta ah inay argagax geliyaan oo dhibaateeyaan oo ay ka faa'iidaystaan cibaadada ay ku jiraan waxaannu marka ballan qaadaynaa ilaahay idankii inaanan u oggolaan doonin argagixisada inay fursaddaa helaan inay dadkeenna iyo deegaankeenna iyo dalkeennaba inay dhibaatadii la doonayaan inay ku fuliyaan inta karaanka iyagoo awooddayada ah waa shaqaynaynaa waxaannu ka rabnaa bulshaweynta puntland iyo galmudug in si wada jir ah arrintaa loo garab istaago labada maamul lagala shaqeeyo hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay dhallinyarada rag iyo gabdhaba dhammaan in meel looga soo wada jeedsado oo aynan cadowga fursad ay dadkeenna iyo dalkeenna ku baabi'iyaan aynan siin waxaan si gaara farriin ugu dirayaa gobolkan aanu haddeer joogno ee mudug labada dhinac puntland iyo galmudug inay ku midoobaan oo ay gacmaha isu qabsadaan colaadihii horena in lasoo afjaro ay saa ku dhammaadaan oo aysan dib u soo noqon argagixisadana inay meel uga soo wada jeedsadaan oo dagaalka argagixisada ay ku midoobaan xogta iyo xoogga iyo xigmaddana ay mideeyaan aad baa